adduunka quraanjada alcaalamu namli the world of ants waxa quraanjada lagu tiriyaa mid kamid ah noolaha ugu badan ee ku fiday meeraheena dhulka caalamkoodana waxa lagu gartaa waxyaabo badan oo xiiso leh oo qarsoon meel walna way joogaan caalamka quraanjada waxa lagu gartaa waxyaabo badan oo xiiso leh oo aan badanaa dadku aanay ogeyn waa kuwa 10 xaqiiqo ugu muhiimsan ee ku saabsan caalamka qarsoon ee noolahan yar tirada quraanjadu waxay ka badan tahay tirada dadka waxa jira qiyaastii 7.7 bilyan qof oo ku nool meelaheena dhulka ugu horantii markaas soo eegto tiradu waa mid weyn laakiin marka la barbar dhigo tirada quraanjada ee ku nool meelaheena dhulka tirada waxa loo arkay inay tahay mid yar beesha tirada quraanjada lagu qiyaaso ilaa 10 kwadrilyan oo quraanjo taasoo bini'aadamku ku soo laabalaamaysa 100 jeer wax ka badan quraanjadu way ka facweyntaa aadamaha khibrada cilmiga ee dhulku waxay ku qiyaasan in bini'aadamku ka soo bilaabmay dhulka 200,000 sano ka hor xilligaas oo caalamka lagu qiyaaso 4.4 bilyan oo sano saynisyahanadu waxay ku qiyaasaan in quraanjadu ay ka soo bilaabmatay xilligii dinosauraadka ama Cretaceous period taasoo intii u dhaxaysay 110 ilaa 130 milyan oo sano ka hor kiimikooyinku waa luqadda quraanjada waxay ku xidhiidhi karaan iskuna kaashan karaan si wax ku oola iyagoo adeegsanaya kiimikooyin ay soo daynayaan oo la dhaho pheromones kiimikooyinkan iyagoo adeegsanaya quraanjadu waxay awoodeen inay fariimo si fudud ugu dirin karaan xubin kasta ugana digaan khatar ama tilmaamaysa marka la joogo xilliga cuntada waxa lagu tiriyaa noolaha ugu awoodda badan dhanka cabirkeeda quraanjada sida cayayaanka yaryar si adag ayay xoog badan yihiin maadaama quraanjadu ay leedahay awood ay ku qaadi karto quraanjada kaliya waxay awood u leedahay inay qaado 3 wax oo miisaankeeda ah waxaana suuragal ah inay qaado 100 mar awoodda miisaankeeda quraanjadu ma nolol gaabna waxa jira noocyo quraanjo ah oo noolaan kara sanado boqoraduna way si cimri dheeraan kartaa quraanjada aan badan aragnaa waa dhadig boqorada ayaa ka mas'uula kooxda siday beedka u dhigtaba dhammaan dhadiga quraanjada ayaa shaqaale ah kana mas'uula hawlgalka iswaafajinta kooxda iyo daryeelka boqorada labka iyo hawsha qashinka iyo nadiifintaba midda soo yeesha borotiin ka badan cuntada waxay noqonaysaa boqorad kuwa soo hela cunto ka yar borotiinna waxay noqonayaan shaqaale tirada waxantooda ayaa go'aamiyay jinsiga labka quraanjadu waxay leeyihiin hal hidde-side halka dhadiguna ay leeyihiin 2 hidde-side labku waxay dhalaan kun aan bacrimisanayn halka dhadiguna ay dhalaan kun bacrimisan quraanjadu waxay caawisaa aadamaha iyo deegaanka quraanjadu waxay faa'iido u tahay habka geyiga iyo deegaanka waxay faafisaa siirka iyo iniinta nafaqaynta dhirta iyo hagaajinta tayada ciidda san waxay ilaalisaa dhirta ay ku nooshaa cayaanku dadkuna waxay ku nool yihiin dhirta maxaabiistu addoomaayay noqdaan caalamka quraanjadu wuxuu caan ku yahay cilmiga duuloosis taasoo ugu tahan quraanjadu gowday inay ka soo xadaan nukunta qolalka kale quraanjada si ay u koriso una gooto waajibaadkeeda addoonnimada quraanjadu ma laha 2 sanbab quraanjadu waxay ka neefsataa oksijiinta taxane godad ah ku yeela dhinacyada jirkooda godadkani waxay ku xidhan yihiin shabakado tuumbooyin ah kaasoo ka caawiya qaybinta oksijiinta ku dhawaad unug kastoo jirka ka mid ah